السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي soo dhawaada halkan waa channelka Faaliyaha Dhadhaab channelkan waxaad kala kulantiin warbixinada ku saabsan xiriirka Dhadhaab alaba warbixinadaas oo muhiim ah maanta waxaan idin hayaa warbixino muhiim ah kuwaasoo ku saabsan warbixinada tirkoobka absentiiska ka jira tirkoobka wixii laga yiri warbixinada sida buufiska warbixinada waxaan idin hayaa bamba jakula oo bishii lacagta dadka la bixin waxaa idin hayaa arrin kale oo bamba jakula idin ku saabsan WV oo ATM la dhaho intaas idin hayaa kusoo dhawaada marka arrimaha tirkoobka dad badan waxaa jira habsantiiskaas waxaa laga yiri qofkii hadda blogiis la gaaro oo habsan noqdo oo imaan waayo waqtigii looga talagalay la soo dhajiyay WV UNHCR ay soo dhajisay oo imaan waayo wuxuu imaan doonaa markii 2 bilood 3 bilood kadib markii tirkoobku uu dhamaanayo inta uu joogi hadda safar ku maqanta aad imaato waxaad sugaysaa ilaa dadka uu ka dhamaado laakiin inaad dhahdo section C oo kale B la joogo haddaan imaadiyo dhex gelaya ma soconayso marka liiskaaga waa laawi doona meel aad ka dhigay hadda habsan tahay fadlan habsankii hadda imaaw hadda UNHCR waxay noo soo dhiibtay warqadahan noo soo dhiibtay ayeen habsan waay marka habsanka waxaa la rabaa inay hadda imaadaan habsanka A0 A1 A2 fadlan imaada habsankiin dadka habsanka ah imaadaan A2 ayda bari ay bilaab rabtaa iyo A3 oo la soo dhajiyay taariikh 1 iyo taariikh 2 A3 waa taariikh 1 iyo taariikh 2 taariikh 1 iyo taariikh 2 A3 ay galay oo ah kaararka dhan A3 kow la 2 3 4 5 ilaa 17 u weyn A3 waxa u horeeya 17 u weyn 17 ilaa maxaa la hayay kowle A3 waxay galayaan taariikh 1 iyo taariikh 2 la socda A3 dhalinyaro fircoona ka soo baxda oo channel ku xiran fadlan la socda u sheeg dadweynaha inay imaadaan taariikh 1 iyo taariikh 2 laakiin waxaan ila gali doono hal yar oo A2 ah oo kowliyaal ah aan ila gali doono taariikh 1 hadduu ilaahay idmo A2 oo hal yar ka hareen oo kowliyaal ah ayaan ila gali doona taariikh 1 inta waxa ugu baxay tii arrintii oo habsanka arrimaha tirkoobka warbixinta lagu weydiinayo waa tamar hore idin sheegay marka fadlan waxba qarsanin waxa aad haysato dhalashooyinka dad waxa arkay dhalashooyin iyo wax soo iloobeen oo bas certificate iyo soo iloobeen marriage certificate iyo oo xaafad ku carrayaan arkay fadlan marriage certificate iyo bas certificate waxa diyaarso dadka kale walaalaheen oo meel kale ka imaanayo xarada joogin fadlan dadkiina la socdo markii A1 la gaaro A3 mise A5 ay imaado hadda A3 la maray A6 A7 A8 fadlan arrintu isbedelaysaa up to A10 dadka waxa imaadaan fadlan A10 ilaa A10 dadkiina imaada because arrintu isbedelaysaa waayo shaqaalihi ay imaanay hadda waxa lagu bilaabo 9 qoys lagu bilaabo ogeedin hadda waxay maraysaa 150 160 qoys in loo shaqeeyo marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in ilaa A10 ay soo diyaariyaan ay imaan tirkoob ay imaadaan ay soo diyaariyaan bloggiis ahayn oo galay tirkoob ma laha new blog IMS F IMS K IMS J I iyo horumar wax Allah ma jiraan fadlan bloggaaga sugaysa arrimaha kale oo ahayn warbixinta lagu weydiinayo waa personal things way arrinta waxa waaye adii lagu tiragalay inaad ka waranto adiga ayaa lagu weydiinaya qoyskaaga lagu weydiinaya badanaa waxaa la wareystaa head of family ninka family u weyn ayaa la wareystaa ninkaasna warbixinta saxda sheeg waxaad u baahan tahay waxaad rabto waxa waa wixii UN ay wax ku qaban lahayd warbixinta maanta la weydiinayo waa warbixinta UN ay ku la shaqeyn lahayd oo ay ka hal state ay ka haysan lahayd UN oo adiga aad leedahay personally waaye fadlan marka warbixinta iska saxa wixii sax ay sheega arrinta sheega arrinta ku xigta waxay tahay buufiska saa ogtiin baa in sheegay waxaa jiray dad oo caafimaad loo qaaday dad badan caafimaad loo qaaday hadda dad baa ku maqan caafimaad saan Nairobi ku maqan dad baa la wacay oo hadda standby dadka marka baxay ayagana standby dad baa falaay sugay 100 intaas oo qofood dhexli kaliya falaay sugays ifo wararku waxay u soo gaareen in ifo taariikh 17 soo socotay laga bilaabo doono flight ee nafteeda la bilaabi doono oo 3 qoys flight laga bilaabo doono marka wararka ayagana way jiraan buufiskan asaga saas uu kala socdaa waayo caafimaad hadaa marto coronavirus laga baara iftu wax lagu geeyay xaga dheer hadii corona laga waayo 3 bir ku jirto waa lagu qaaday Nairobi caafimaad soo maraysa xarada dib lagu socona falaay sugaysa falaay lama soo dhajiyo تلفون على سكوا وقتين عافمات تدبنا وحقرنا لصوّع تدبنا درسي أنا تعال صوّع عافمات سوين تدبنا أنقرنا نرجع عليه إفوا حقدر يكون مقنين عافمات يكون مقنين مركب بوفسكا وحي عافمات قبل هذا أم باسعودا حلا كلا بوفس أم صعودا كلا أم صعودا بوفس أم صعودا أرمى حسنا ومهم
dadweynaha lala socodsiiyo dadka falay sugaya naftooda telefoonada ay sishnaadaan anytime aad lagu soo wici karaa oo aad falay aadi kartaa marka reer falay waa taa ayana waxaa soo haray arrinta bamba jakula saa ogtihiin bishii lixaad lacagteeda way soo dhacday waxay soo dhacday taariikh 25 bishii lixaad 2021 ay soo dhacday bamba jakula lacagteeda waa la baxay magaalada way socotaa laakiin hal arrin oo muhiim ah u sheegaya dadka lacagta laga baxsanayo iyo dadka lacagta baxsanayaba waa Soomaali waa qaxooti waa dad iska daanyar marka hay'adii warbixin bay bixinaysaa maalin kasta ogeysiis ay bixinaysaa ogeysiiska in la dhageysta loo baahan yahay waan kala qaadayaa marka la wada sheeko waxaan u kala qaadayaa dadka waxaan ku hormarayaa arrinta lacagta baxsanaya dadka lacagta baxsanaya oo shubanaya dadka u shubanaya ka shubanaya ayaa hormaraya oo dukaanlaha ku hormaraya dukaanlow ma ogtahay in lacag badan ay ku jirto bamba jakula hadda oo dukaankiin ay taalo lacagtii aadna la baxaynin dadweynihiin leemanka ka qaadeen marka dadweynaha u sheegaya in leemanka dadweynaha ka qaaday lacagtaada kala baxdo haddaad lacagta la bixin oo lacagta meesha ay ku dhacdo oo WV meesha ay la noqoto dadweynahaas lacagta kuma liid lacagtaada ka dhuntay dadweynaha wixii soo qaadanaya lacagtana laga rabo ogow ninka dukaanlaha ogaado dadweynaha ogaadaan in leemankooda ay haystaan hay'adda saas ay ku ogtay haddii bari lacag lagu qabsado oo lagu dhaho leenka asaa ii dhiibi masleenka uu dhumay lagu isku qabsado hay'adda shaqo kuma laha idinka asuusay laakiin hay'adda waxay leedahay ninkii leenka qaaday ay mas'uuliyadda dhanka ka saaranta asaga lacagta asaa iska dhumi waxaa jira waqti loo qabtay in lacagta la ishto waqtigaas oo marka hore aan ku sheegnay taariikh 30 bishii 7 waa laga soo hormariyay taariikh 15 bishii 7 asbuuc bisa ka dhiman taariikh 15 asbuuc ka dhiman taariikh 15 laga dhigay taariikh 15 bishii 7 2021 wixii bamba jakula ay u soo dhacday bishii afraad bishii shanaad iyo bishii lixaad waa la noqon lacagtooda oo la bixin dadka la bixin way haddaad la bixin bamba jakula bishii afraad bishii shanaad bishii lixaad 2021 waxaa la noqonayaa taariikh 15 bishii 7 2021 lacagtaa waxay ku noqonaysaa bangiga WV ku noqonin waayo adiga waa ka maarantaa anti bakar aad inta haystaa waa ka dhargsan tahay hay'adda way aragtaa inay ka dharsan tahay 3 bilood ku siisa 3 bilood way la noqon lacagta arrinta waxay muhiim u tahay si qaas ah dadweynaha badan waxba kama dhumaan wax ka dhumo muhiim badan oo ka dhumo waxa waaye dadka dukaanleyda fadlan cod gaaban cod dheer ku sheegina dukaanleeyow fadlan lacagta la bax taamka hore oo saan u qaylinayno calan 3 milyan noqotay lacag 3 milyan ay noqotay marka arrintaas lacagta askari Soomaali ogaada sir badan hadda in ka dabageeyo dukaanlow sa ogtiinba lacagtiin in la baxdin oo malaysin laakiin waxaan waa jinni lacagtan bamba jakula leemankan la haysto waa jinni ani bamba jakula bixinay leeman badan oo ani aan ina bixiyo lacagta oo malinay ayaa arkay in lacag iska jirto marka dambe markaan baar leemanka fadlan leemanka ha isku noqo baar leemanka ha isku noqo dib u baar ina lacag ka heshaa laga yaabaa lacagta meesha ku jirto leen ina bixisa oo malinaysi ayaa laga yaabaa inaad bixin wayna dhacdaa anaga u dhacday marka dadweynaha u sheegayna in arrintaas ay muhiim tahay ayna lacagtooda la baxaan ifo dhagaxley xaga dheere ifo dhagaxley xaga dheere ifo xaga dheere ugu daran fadlan lacagtiina la baxa dad badan oo dukaanley wax barteen dadka wax baran iska daaba dad dukaanley badan oo wax barteen ayaa waxay ka maqaneed 900 kun u badbaadin inta ka noqotayna ka daranta 900 kun ninkii loo badbaadiyay maanta asoo dukaanley wax ganacsanay 900 kun loo badbaadiyay 7 qoys oo min kaaro weyn kan u yar 12 misax toon u yahay oo leemakooda ka dhumeen ma ka warhayo dukaanka culay maalinkaas dukaankii ma hadda wax la ku dara bil kasta kula waa uu soo subiso lacagta bixi ku dara lacagta shemeel ba ku dhurmaysaa meel ba ku dhurmaysaa ku baa loo bool keeyta kuna loo bool kontas keeyta hayda marka online ka arkaysa lacagta in la bixin arkaysa lacagta laga maaray meel ku dhurmaysa hayda yaa bant ninkan dukaanna macallay beneficiary link lacagta u dirtay durka in loo baxo durdan loo baxay hadi maxaa lacagtan meesha ku jirto marka dukaanliya waxay baashi beneficiary la raashin u qaana raashinka bariis baasta kor u qaana lacagta wala baxay lacagta la baxay marka kariirka ku noqo sanduuqa gelinis baash ku noqo lacagtaada baaro fadlan la bax intaas ay waano ilaa marqaadka wayna u sheegay dukaanliya u sheegay arrin kale oo muhiim ah oo hadda ka hor aan sheegnay 2019 2020 ma ahayd aan sheegnay oo WV inta ka shaqeynaysa hadda la bilaabo arrin la dhaho ATM ku waay leen yar oo aad gashan doonto meel kaalin shiraal uma haytaa magaalada hadda kaalin saliid la sameeyo WV ay sameertaa kaalin saliid
saamaro in ku sheegnay kaalmo saliid la sameyn rabaa oo meel saliidda meesha ka qaadan raashinka kama qaadan doontid raashinka kala qaadanaysaa gudaha raashinka qaar lagu sameyn doonaa qaar waxaa lagu sameyn doonaa dukaamleyda bannaanka ayaa lagu sameynaa arrintan waxay bilaabanay bishii sideedaad ay bilaabanaysaa bishii sideedaad soo socoto 2021 ilaa dudhow ay bilaabanaysaa kaalin saliid waay saliid baa meel la dhigi doonaa oo waxaa dhigi doonaa bahal meel la dhigo saliidii si bangiga maanta lacag kala soo bixi maqal leen bash ATM qaadanay waa gashani meesha caaga hoosteeni shuruuq saliidaadi meesha kugu daadani marka waxaana kaama go'ayaan waxaana kuguma darsamayaan hebla ay baagtay nuskiila iga dhimaniyo bakeeri iga dhimaniyo koob iga dhimaniyo waxa ma jirto igu celi shir ku noqoyo FC aabiyo lolo V aabiyo raashina laga jartay miisaan laga jartay ma jirto ogow in saliidaada oo sax ah aad heli doonto waxaa lagu bilaabi doonaa 200 qoys pilot project way 200 qoys lagu bilaabi doonaa 200 qoys lagu bilaabayo waxaa laga soo dhaxbay doonaa kaararka inta bishii raashin waa qaadanaysa saliid inta laga qaanaya laakiin 200 qoys ayaa ka qaadan doona magaalada meelaha bambaja kulada nimanka bixiya ayaa la dhigi doonaa meesha meel baa lagu sameyn doonaa waxaa mas'uul ka noqon doona ninkii bambaja kula u shaqeeya ayaa arrintan hay'adiisa u shaqeynaysa iyada og way ka shaqeyn doontaa way warsoo jeedi doonaa ninka sidii codsada meeshiisa space waa la dhigi doonaa santarada la dhigi doonaa suuqa meelo waxaa jira santara meelo santara jira meelo dad isku imaadaan jira waa la dhigi doonaa marka meel kasta ninkas u dhow hay'ad maamo kasta uma ka doonaysa hal meel lagama doonaa feel dheer ma jiri doono waayo corona jira meesha dhibaa jira feel dheer ma jiri doono macnaha waa la badin doonaa ninba meel bisha markii 200 laga dhigo bilda ma lagu dar doonaa 200 karo bil kale waa lagu dar doonaa bil kale waa lagu dar doonaa baalina waa la sii dhisi doonaa marka ogaadaan dadweynaha in arrintaas ay pilot project ay tahay hadda bilaaw ay tahay ogaadaan bisha sideed 200 qoys lagu bilaabaa saliidina waxay ka qaadanaya magaalada raashinka soo qaadanaya magaalada imaani leenka meel gashay shuruuq saliida ku daanay inta ku qoran ka nambarka ku qoran ka nambarka gelina meesha dhag asaab bisar ku dhag waa gashay waxa waa daadsani saliida waa qaadani marka haddii rabto saliida in halka ka qaato inta rabta qoran dhag haddii ay leedahay 200 kiilo 100 kiilo qoran inta kale islaanta iyo raajooyin inta haleen lahayn meesha ku reebani bari waa qaadan haddana haddii ogtay in saliida ka xadayo saliida meesha ku reebani marka amnigi iyo waxa si loo ilaalinaa dhanna hay'adda askari ay dawladda ka hadleen ayaga garanaa suuqa si loo haleena ilo hagaajinay wax dhan su'aalo badan ka imaan doona garanaa marka arrimahaasna dawladda askari marka waxaan rabaa arrintaas ATM-ka dad badan la tababar doona waxa jiri doona dad badan la hadli doona dumarka la hadli doona laga tashan doona waxa la hadli doona dadweynaha guddiga raashinka waxa la hadli doona gudoomiyaal shenderaal loo jeedi doona arrinta weynaan doonta loo sheegi doona ayadoo ritana oo hay'ad ay soo qortaa aan sheegay ayadoo ritane oo qoran si hadda hay'adan isoo dhiibtay magacyaan qoran amal oo dadka saa u qoran amal u qorana waa in soo bandhigi doona Facebook iyo meel kasta waa soo gelin doona waa kala bixi doontiin marka dadweynaha waxaan filayaa in arrimahan meeshan ku qoran ay muhiim arrimahan shanta meesha ku qoran ay muhiim tirkoobka in la imaado waa muhiim buubiska in laga warhayo waa muhiim bambaja kulada lacagta in noqonaysa in la baxo waa muhiim arrimaha ATM-ka in la socdo waa muhiim waayo la soco maadaama qaxooti aad tahay channel kaliya oo sooska qaxootiga information bixiyo kan fadlan hadaa channelkan subscribe saaro ay naftaada because muhiim ay ku tahay waa muhiim hadda waxa bilaabay ATM ka warqabta guriga ku sheegay malaha gudoomiyaal waa 10 qof mise 20 qof 15 qof waay markii uu shir loo sheegay warbixin intay gudoomiyaha soo gaaray warbixinta waa dhibanta laakiin adoo guriga joogo mooto soo raacin adoo meel kala aadin adoo boor ku dhicin ayaa warbixin helaysaa qadka telefoonka furnay qadka ka helaysaa warbixinta marka waxa la rabaa dadweynaha inay arrintaas ayna muhiim ka dhigtaan haddii aad og tahay dadweynuhu oo aad og tahay warbixinta channelka la socota aad og tahay u sheeg dadka kale walaalada gaarsii xaqdheer qaraabo ku joogto ifo qaraabo ku joogto kulli waa ka hadlaa ifo xaqdheer ka hadlaa hadda xaqdheer waa laga bilaabi doonaa berrito maanta shirkii waxa loo shirayaan oo si loo sameyn lahaa loo sheegaya xaqdheer berrito arbacadii ilaahay duu dhaw xaqdheer shaqadii tirkoobka bilaabanaysa reifo isdajiya idinka toona soo socda qaxooti atiin ognahay asbuuc laba asbuuc kadib ifo ayayna waa la diyaarinaya wixii la diyaarinaya shaqaalihii iyo wixii shaqeyn lahaa ifo emailihii la dhisa waa la hagaajinaya marka ifo nafteeda dad baan arkay soo qoray ifo waa laga tagay isaan waay waxa ma jiraan ifo ay nafteeda waa diyaar insha Allah laba asbuuc kadib ayagana halkaan aan soo dhigi doonaa warbixintooda markay bilaabanayso saacadaha iyo waxay dhan aka kala socdoontiin marka boorka fiirsada tirkoobka waxa loo soo dhiibaa boor waxa loo soo dhiibaa gudoomiyaasha waxa loo soo dhiibaa shandarada waxa loo soo dhiibaa channelka faayad dhaba la soo gelina kala socda
marka ogaada meeshii wax lasoo dhigay iyo blogan in la gaaray in kale dadka banaanka naga jira walaalaheena oo meelo dheer ku maqan oo meelo dheer ka shaqaysanaya ama sifa kale u maqnaan ama xanuunsan oo meel jira ama raba inay tirkoob u imaadaan section A hadda A3 la maraa dhagaxdii oo kale dhagaxdheerna A1 A2 la maraa marka waxaa la rabaa in A3 hadday marayso haddii saaxiibka loo xiro adina soo qoysla waay marka ilaa A10 dadku hay imaadaan ilaa A10 dadkii markii shaqaalaha soo badanaya fadlan hadda 160 150 la maraya qoys fadlan imaada 160 qoys maanta loo targalay waxaa imaatay 77 qoys bis inta kale ma imaanin marka waxaa la rabaa in dadka ay imaadaan dadweynaha inay imaadaan fadlan imaada tirkoobka imaada ilaa A10 tirkoobka imaadaan dadweynaha ilaa A10 fadlan hadda maqlas A10 Nairobi ajoog gaar ajoog Hargeysa Soomaaliya Xamar Ismaayo meelaha dhan Baydhabo meelaha wax jirtiin fadlan taariikh afar bilood ma saddex bilood kadib tirkoob buu joogsan doonaa marka habsan haddaan noqotona maalinta caabudaa la dhaafo fadlan hadda kusoo noqon habsan 2 bilood ma saddex bilood ma gaar kadib ayaa 2 isbuuc lagu sii doonaa عليها الله أسبوع نفترض إن أكو أبسط أكو رفض مركو عليه channel subscribe صار لايك صار شير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته